Maamulka Gobolka Hiiraan ayaa bilaabay inuu cuno bisayl ay u qaybiyaan qaar ka mid ah barakacyaasha ku jira xerooyinka qaxootiga ee ku yaala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kuwaas oo abaarta ay soo xooletirtay isla markaana xilligan xaaladaha adag oo dhinaca nolosha ku haysa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dad Saameeyeen iyo tuuran oo halkaas ka hayaan oo awal u soo qaado ibarahana wada barbagoogana ka soo hayaan meeshaan ayaantan gabartaana ay nafteeda wax ku soo tuurayso haddana saddex bari waa ku qado waa taagan halkaasaan hayaan oo naagladmo inta ka dhaxaysa sagaal qof aan meel ku noolooba roobkaan lagu doona baqtiite cad meeshaan gabartayda ku jiray gabartii baan ka gabaxtii xararo dhig tagay meesha noo wada qaaday xaggeey roobki gaadhsiiyay ilaa toogya hadaan hore bahalkaygaas ku هاي راشين كان بالقودنتا سيدا ونوغو سو غاراسا كوشا راشين كان قجافاتك مرمر وهلا مرمرنا صندوق دار ugu jirnaan dhaxdo looga dhacdo hala soo kuwaysan ma la isku xoogaa badan ma la isku xoogaa dadka ama tir ka bad هاي الاسلام gaara yaani cadadii loogu tiragay tir ka badan imaanays هاي hurumba maal isku maasmuta marka saa lagu cino oo hornad ugu jirtaadba ku go'san ma digseeda cunaysa أياد ما أنت فالك رافرتها فندل سميسي جاري بربكم أدب إنها نوقد ولا وضع قصنا مركب رسمه وأنا لسكر تورنا يعني هذا أمها سيء يعني وحصلنا أنت يروح لمنا لا يجينا أسود يعني هذا هنا نعم حنقعدنا نجرب سيان الجرب كسيان معمولك أنت أو يجلالك وقود أنت يعني هنتي راشين كهد أنت قليلكم مجارة توقف لكن هذا يعني وحكوا جارة بغلال waayo qaleel hadii la yiraahdo ma gaari karabo 20 ruux xataa ma gaaro aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayna maamulka arintan iyaga leeleen hay'adahan waxaan ku codsanaynaa garab ku siiyaan iyo intii kale dadkan arkaysaba inay garab ku siiyaan maamulkana waxaan ku codsanaynaa in nacam ay u soo kordhiyaan dadkan hooy ma haystaan raashinka waa kana quudintana Allah bada ilaahay ka soo saaran Abdishakuur Maxamed Xasan telefishinka caalamiga ah Saab TV Beledweyne